Daraasaddu waxay daaha ka qaadaysaa qaddar naxdin leh oo caag ah oo ku jira xididdada bukaannada istaroogga. Qaybo yaryar oo balaastig ah ayaa laga helay meel kasta oo ay cilmi-baarayaashu eegaan oo ay ku jiraan dhammaan jidhka bini'aadamka. Microplastics iyo xataa ilmaadeeradooda yaryar nanoplastics waxay u badan tahay inay ku qulqulayaan dhiiggaada oo ay ku dhismaan xubnahaaga sida sambabada iyo beerka. Hadda daraasad cusub ayaa isku xidhaysa dhibcaha microplastics isku xidhka dahsoon ee wadno xanuunka iyo khatarta istaroogga. Waxaa jira qaar ka mid ah microplastics ee caadiga ah. Halbowlayaasha caafimaadka qaba Daraasaddu oo ah cilmi-baare caafimaad oo jaamacadda New Mexico ah oo hogaaminayay daraasadda ayaa u sheegay Business Insider ka hor inta uusan soo bandhigin natiijooyinkiisa kulanka ururka wadnaha ee Maraykanka ee Baltimore Talaadadii. Laakiin inta ay leeg tahay marka ay bukoonaadaan oo ay ku bukoonaadaan calaamadaha, runtii waa ka duwan yihiin, ayaa yidhi. Heerarka microplasticku waxay 5 jeer ka sarreeyaan halbowlayaasha bukaannada istaroogga daraasado la helay. iyo kooxdiisu waxay cabbireen microplastics iyo nanoplasticska khatarta ah, huurada dufanka leh ee ku kora halbowlayaasha, xannibi kara socodka dhiigga oo keeni kara istaroog ama wadne istaag. Marka la barbar dhigo darbiyada halbowlayaasha caafimaadka ah ee aan huurada lahayn, dhisidda huurada waxay lahayd 6 jeer caag ka badan kaliya dadka aan lahayn calaamadaha. Dadka ay la kulmeen istaroog yar ama lumis aragga, huurada waxay lahayd 5 jeer caag ka badan. Wow oo ma fiicna. Jaime Ross oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga neerfaha ee jaamacadda Rhode Island oo aan ku lug lahayn daraasadda laakiin wax ka bartay microplastics ee jirarka, ayaa u sheegay kadib markii uu akhriyey natiijada. Waa wax laga naxo in la arko 5 jeer ka sarreeya, ayay tiri, iyada oo raacisay in cilmi baaristeeda calaamad 3 jeer ka xoog badan ay tahay aad u adag oo cajiib ah. Waxa dhabta ah ee balaastikada ay ku samaynayaan halkaas haddii ay jiraan ayaa weli ah qarsoodi. Daraasadda cusub waxay bixisaa qaar ka mid ah tilmaamo suurtagal ah, inkastoo cilmi baaristan ayaan weli la marin baaritaankii dib u eegista asxaabta, laakiin wuxuu sheegay inuu qorshaynayo inuu u gudbiyo daabacaadda joornaalka cilmi baarista ee asxaabtiisa dabayaaqada sanadkan, kadib markii uu dib u soo celiyey qaar ka mid ah natiijooyinkooda. Dhaqdhaqaaqa hidde-sidaha ayaa u ekaa mid ka duwan caag. waa dhakhtar qalliin oo xididdada dhiigga ah, ma aha khabiir ku takhasusay microplastics. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu fikradda daraasaddan ku helay markii uu la hadlay saaxiibkiis Matew Camben, kaas oo dhowaan ogaaday in maskaxda bini'aadamka ay ku jirto qiimihiisu balaastig ah. Microplastics oo ku yaal farta aadanaha. Microplasticsku way ka yar yihiin kan. Bacis 6.9 oo anta. Waxaan si wada jir ah u ogaanay in aysan jirin xog badan oo ku saabsan nanoplastics iyo microplastics ee nidaamka xididdada dhiigga, gudaha xididdada dhiigga, ayaa yidhi. Cilmi baaris hore ayaa lagu ogaaday in dadka leh microplasticska ku jira huurada halbowlaha ah ay u badan tahay inay ku dhacaan wadna xanuun ama faalig ama ay dhintaan. Si loo baaro sababta, waxa uu daraasad ku sameeyey muunado laga soo qaaday 4 qof oo halbowlayaasha carotid, 2 jid weyn ee qoortaada oo dhiigga u gudbiya maskaxdaada. Farqiga u dhexeeya tirada balaastikada ah ayaa la yaabay isaga, laakiin kooxdiisu waxay heshay mid kale oo ku saabsan isbeddelka. Sidoo kale, unugyada huurada oo leh balaastig badan ayaa muujiyey dhaqdhaqaaqyo hidde-side ka duwan kuwa bacyar leh. Deegaanka caagaga sare leh, 1 koox oo ka mid ah unugyada difaaca ayaa demiyey hidde-side xiriir la leh daminta bararka. Kooxda waxay sidoo kale ka heleen kala duwanaanshaha hidde-sidayaasha koox unugyo asliga ah oo loo malaynayo inay ka caawinayaan ka hortagga wadne xanuunka iyo istaroogga iyagoo yaraynaya bararka iyo xasilinta huurada. Miyay noqon kartaa in microplasticsku ay si uun u beddelaan muujinta hidda-wadaha? ayaa yidhi. Waxa uu intaa ku daray inay jiraan cilmi baaris badan oo dheeraad ah oo loo baahan yahay si buuxda taas loo xaqiijiyo, laakiin ugu yaraan waxay ina siinaysaa tilmaam ku saabsan meesha aan eegno.
roos oo ku takhasustay hababka hidda socodka ee ka dambeeya cudurrada ayaa oggolaatay in loo baahan yahay cilmi-baaris dheeraad ah, laakiin waxay ku dartay inay u malaynayso balaastigani waxay wax ku samaynayaan tabeelooyinkan. Ma garanayno uun. dabagalka microplastics ee jidhka bini'aadamka waa dadaal cilmiyeed cusub oo la sameeyey 2 sano ee la soo dhaafay. Ma fiicna. kooxda lark waxay ku kululeeyeen shaybaarada huurada ilaa in ka badan 1 darajo Fahrenheit si ay u soo bixiyaan polymers caag ah oo ay u kala jejebiyaan unugyo dabiici ah oo yaryar, kuwaas oo lagu aqoonsan karo laguna cabbiri karo qofkooda iyo hantidooda kale. nasiib darro, lipiidska ku jira huurada waxay u kala qaybin karaan kiimikooyin aad ugu eg polyethylene, balaastiga ugu badan ee laga helo wax kasta oo laga helo bac ilaa qaybaha baabuurta. sababtoo ah waxaan ognahay dhibaatadan, waxaan qaadnay tillaabooyin badan si aan meesha uga saarno lipids oo aan u xaqiijino kasaaridooda, si aan u hubinno inaan cabbirayno polyethylene. lark ayaa sidaas yidhi. weli wuxuu ku daray, waa xadidaad weyn, waana in la qiraa in hababkan oo kale ay si joogto ah u soo hagaagayaan. lark waxa uu isku dayayaa in uu dhaqaale u helo in ka badan. barashada isdhexgalka ka dhexeeya microplastics iyo unugyada difaaca ee derbiyada xididdada dhiigga. waxa uu rajaynayaa in uu balaadhiyo cilmi-baaristan oo ka baxsan halbowlaha carootid iyo sidoo kale inuu sameeyo tijaabooyin xayawaan ah si loo tijaabiyo sababta iyo saamaynta. kaliya ma garanayno, lark ayaa yidhi. ku dhowaad dhammaan waxa aan ka ognahay microplasticska jidhka bini'aadamka, iyada oo aan loo eegin meesha aad eegto, waxaa lagu soo koobi karaa waa halkaas. waxaanan u baahanahay inaan sii baranno waxa ay samaynayso haddii ay jiraan.